le représentant de la société Red Sea Global. si ila isku xiro oo baayacmishirka la fududeeyo isdhaqaaqiisa baayacmishirkuna wuxuu keenaa inuu nabadda xoojiyo ayuu keenaa marka fiiradaas waa sida markabkan waxa weeyaan capacity-giisu wuxuu qaadi karaa 1,118 container buu qaadi karaa oo 220 ay tahay container frigoga marka Mediterranean-ga dalalka ku yaala dalalka badda cas ku yaala iyo dalalka ku yaala Indian Ocean ayuu soo xiri doonaa Djibouti wuxuu soo birinay horta Djibouti horta ka dhiga hub transshipment ka waxa la yiraahdo oo ka maqnayd meeshan maraakiib u adeegta ayaa ka maqnayd marka kan waa markabkii horeeyay kii labaadna waan wadnaa iminka inaan dhamaystirno dhawaan bisna soo gaari doonaa waxa weeyaan bulshada reer Djibouti iyo dadka baamishirka Djibouti waxay ku helayaan alaabtii ay ilsiga u furteen ay iibsadeen si toosa oo aan transshipment boorar kala dhaxdaa 2 goor 3 goor la digin ay toos galayaan hada isaga u qaybin doona markabka lagu ma ekaanayo insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo dhow inaan ilaa 3-4 inaan gaarsiino dadkii wadi lahaana waa ninka arkay dhalinyartan beelodada amba gabdhaba wiilal oo ka soo qalin jabiyay akademiya al-bahriya la yiraahday ku taala Iskandariya anoo safiirayay bilaabeen diraasada waxaan u joogay goob joog u ahaa markay ka qalin jabiyeen anigoo farxad gaar ah waxa kamid ah gabadha ugu horeysay markabka raacda oo Faadumo waa laga yaqaan Masar marka shucuurteed maanta aad ayay u fiican tahay waxaan rajaynaynaa kol haddaan marka hore lahayn marsooyin casri ah oo aan service aan u qabanaynay maraakiibta meel kasta laga leeyahay maanta marsooyinkeeni waxa ay service u qaban doonaan markab aan leenahay iyo maraakiib aan leenahay marka waa wax weyn alxamdulillah mustaqbalkuna ka sii fiicay insha Allah marka wadanka ayaa qaybtiisii gaadiidka badda halkani maxaa yeelay maraakiibta waaweyn haddii tole inay galaan marsooyinka oo dhan ma waxay jecel yihiin in ay helaan qolo ka reebta oo iyadu wasacda ama qaybisa badeecada oo sida waxa weeyaan waxa la yiraahdaa cluster iska jira oo ilaa maanta maraakiib shisheeyihii ay ku amal falaan oo maraakiibtii shirkadaha waaweyn ee 10,000 20,000 ee maxaan ku yiraahdaa container sidaay maba gali karaanba maxay marsooyinka qaarkood mana waqtina uma hayaan kolka Djibouti oo kale marka ay soo joogsato halka ay tiraahdo anaa inta hadhay shaqo ku leh min Masr kolkaad kaga soo qabato Mediterranean-ka ilamaan Indian Ocean-ka oo xagga Iran u sii jeeda maraakiibtii wasacaysay badeecadka ganacsiga sahlinaysay ayaa yani aan jecelnahay annagu inaan dhex joogsano oon qaybteena ka qaadano walxamdu lilaahi rabbil caalamiin